Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanto wacan oo wanaagsan, galab wanaagsan, daawadayaasha ku xiran bartan Gradesa Tube. Kusoo dhawaada taxanihii aan idin ballan qaadnay ee aad YouTube ka aragteen. Waa taxanaha taariikhda golaha shacabka ama golaha sharci dejinta Soomaaliya ama taariikhda baarlamaanka Soomaaliya. Fadlan haddii ay tahay markaadii kugu horeysay, fadlan subscribe saar channelka, like, share, commentigana waa dhankaaga. mahadsanid. aynu bilowno muuqaalkeena. Soomaaliya oo loola jeedo labadii gobol oo ku midoobay Jamhuuriyadda Soomaaliya 1 Luulyo 1960 waxa ay soo martay marxalad kala duwan tan iyo markii dowladda Talyaaniga iyo midii Ingiriisku ay bilaabeen in ay ku fidaan goboladan laga bilaabo dhamaadkii qarnigii 19aad. Muuqaalkani waxa uu ku saleysan yahay daraasad aan ka sameeyay taxanaha golayaasha sharci dejinta Soomaaliya soo yeelatay, qaabka ay golayaashu ku imaan jireen, madaxdoodii iyo gudmada ay qaadan jireen. Daraasadu waxa ay xoogga saaraysaa golayaasha sharci dejinta ee ka hirgelay labada gobol ee Soomaaliya oo ku kala jiray gacanta maxkamiyadda Britishka iyo waliba wasaayadda Talyaaniga. oo 1 Luulyo 1960 ay ka abuurantay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Inta aynan Soomaaliya xuruud, labada gobol waxaa ka hana qaaday golayaal sharci dejin oo markii hore ku dhisnaa hab magacaabid kadibna doorasho. Ugu horeyn, dhinaca waqooyi ayaynu ku hormaraynaa. Dhinaca waqooyi ama maxkamiyadda Britishka Somaliland marka laga bilaabo 1946 waxaa la dhisay gole lagu magacaabo Golaha la Tashiga Advisory Council oo sanadkiiba hal mar shiri jiray. Sanadkii 1955 waxaa la soo saaray sharci lagu magacaabo The Somaliland Constitution Order in Council 1955 ku dhaqankiisu dib u dhacay ilaa 1957. xilligaas oo la dhisay golihii ugu horeeyay ee sharci dejinta British Somaliland oo ka koobnaa xubno isku dhafa. sanadku markuu ahaa 1959 waxaa dhaqan galay mar labaad isla sharcigii sare ku tilmaamnaa ama sare aan ku soo sheegay ee The Somaliland Constitution Order in Council oo lagu dhisay golo sharci dejin ka kooban xubno la soo doortay iyo qaar ku yimid magacaabid. 1960 doorasho ku saleysan isla sharcigii ahaa The Somaliland Constitution Order in Council ayaa ka dhacday British Somaliland. waxaa doorashada ka qayb galay xisbiyadii halkaa ka jiray, waxaana lagu soo daray 33 xubnood oo ka kala tirsanaa saddexdii xisbi siyaasadeed, SNL oo heshay 20 kursi, USB oo heshay 12 kursi iyo NUF oo 1 kursi ah. dhinaca koonfurta markii aynu fiirinana, dhinaca kale koonfurtu markii ugu horeysay ee Soomaalida ku nool dalkii loo yaqaanay Soomaali Italiana laga talageliyay aayaha dadka iyo dalka loona dhisay gole u habaysan qaab baarlamaan. wuxuu ahaa xilligii Talyaanigu uu dib u qabsaday ama dib ugu soo laabtay Soomaaliya isagoo ka wakiil ah qaramada midoobay kalena wareegay maamulkii Soomaaliya dowladdii Ingiriiska oo gobolkan ka qabsatay Talyaaniga sanadkii 1941. 1951 golihii ugu horeeyay oo qaab baarlamaan u dhisan ayaa laga aasaasay Muqdisho, waxaana la dhihi jiray Consiglio Territoriale ama Al-Majlis Al-Iqliimi. magaca rasmiga ah ee xubnuhu wuxuu ahaa Consigliere Territoriale sida ku xusan amarka Ordinanza lambarka 144 ee soo baxay 30 Diseembar 1950. xubnuhu waxa ay ku imaan jireen hab magacaabid nominina ee ma ahayn kuwa doorasho dadweyne toos ah ku yimaada. magacaabidaasoo uu xeer ku meelmarin jiray xaakimkii idaariga Talyaaniga ahaa ee Soomaaliya, Amministratore
soo jeedintuse waxaa lahaa qaybaha bulshada ee xubnahaasi ay taliyeen. xubnuhu goluhu Consiglio Territoriale waxa ay ku imaan jireen 5 qaybood oo kala ahaa: 1. xubno ka socda gobollada dalka Rappresentanza Regionale. 2. xubno ka socda xisbiyada siyaasadeed Rappresentanza Politica. 3. xubno ka socda qaybaha dhaqaalaha Rappresentanza Economica. 4. xubno ka socda hidaha iyo dhaqanka Rappresentanza Culturale. iyo 5. xubno ka socda jaaliyadihii shisheeye ee deganaa dalka Rappresentanza della Comunità Minori. iyadoo muddada xilka golo kastana waxa ay ahayd 1 sano. waa hagaag dhagaystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa qaybtii koowaad ee taxanaha taariikhda baarlamaanka Soomaaliya. inta aynu qaybta xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaano Allah. fadlan channelka like saar, subscribe gambaleelka furo, commentiga iyo share-kana inta nagu caawi. mahadsanid.